sidaan wada ogsoonahay bulshada deegaanka Soomaalida ku dhaqan boqolkiiba 75 waa bulsho xoolo dhaqata ah isla markaana ku tiirsan xoolaha ay dhaqdaan abaartan baan ee deegaanka ku habsatay ee dadii dunyada saameysay waan dareemi karaynaa 75 maadaama ay bulshadii tahay bulsho xoolo dhaqata saameynta ay u geysan karayso waxaa kaloo jirta waan dareemaynaa bulshada xoolaha dhaqata haddii abaartii ay ka saameyso xoolaha maadaama ay ku tiirsanayeen xoolaha laba isugu jirayaan kow marka koobaad xoolaha ay saameynayso waa xoolaha la maala dadka si toos ay markaa ugu tiirsan yihiin waan dareemi karaynaa marka gaabka halkaa ka iman karaya waan dareemi karnaa waxaa kaloo jira tirada xoolaha lagu qiyaasay deegaanka waa 48 milyan oo xoolo ah isla markaana bulshada 75% ay ku tiirsan yihiin haddii aan iraahno xoolaha ay saameysay ee maanta dhintay tirahan horta figure toos oo la sheegi karayo ma jirto way jirtaa xoolo badan inay ku dhinteen oo xoolihii dadka ay dhaqanayeenna laakiin maanta haddii la yiraahdo 11 gobol 9 gobol ee abaartu saameysay gobolka 10aad laftirkiisa gobolkan faafan hadda joogna qayba ay si adag ugu saameysay baa jira xoolaha ku dhintay hal xaqiijiyo haddii la yiraahdo si toos ah figure la sheegi karaya maadaama uuna jirin xoolo tiro badan inay ku dhinteen waan cadeynaynaa taayadan hadda waxaa jira tiimam la kala diray oo soo xaqiijinaya hawshan iyada gobol kasta degmo kasta qabale kasta xoolihii ay saameysay abaartii ku dhintay iyadoo si cad in la diyaariyo oo la keeno marka taa halkaas aan kaga gudbiyaa haddii aan iraahno kaalinta laga geystay maxay noqonaysaa ilaa hadda calafka xoolaha ee xafiiska xoolo dhaqatada uu qaybiyey degmooyinka kala gidisan la gaarsiiyey 114,897 bayl oo calafka xoolaha ah haddii aan kg ahaan u bedelnana 1,723,455 kg oo loo qaybiyey 53 degmo oo ka mid ah degmooyinka deegaanka ayaan gaadhsiinay waxaa iyadana halkaa ku jira 13,000 oo kuntaal oo calafka nafaqaysanna oo la diyaariyey ayaa jira ilaa haddana waxaan ka rarnay calafka waxaa looga talagalay 76 degmo oo deegaanka ka mid ah marka ilaa hadda waxaan ka rarnay 4,150 kuntaal ayaan ka rarnay oo iyadana 76 degmo ka mid ah waxaa kaloo iyadana barbar socda xoolaha markay abaarta sidaan ugu dhacdo daaqi uu yaraado waxaa dhacaysa marka cudurrada inay u nuglaadaan baa dhacaysa cudurradaas oo noqonaya marka cudurro kala gidisan inay iyaguna u sahlanaato inay ku dhacaan waxaan sameynay marka si hawsha loogu gurmado in talaalka xoolaha iyo daawooyinka la gidisnaa iyadana la fuliyo 34 degmo ayaan ka fulinay talaalka isagana waa dareemi karaysaa neefka body weight-kiisa markuu hoos u dhaco waliba xoolaha nugulka ee la maalo waxaa dhacaysa marka xanuuna waagi hore uu iska difaacayay si toos ah inay u abaaraan marka talaalka iyadana waxaan ka fulinay 33 degmo kuwa kalena waxaan rajaynaynaa iyadana sida ugu dhaqsaha badan inaan iyadana gaarsiino waxaa jira qudheedo shaybaaro meelo xanuuna gooniya laga soo sheegay oo waayada hore deegaankan lagu garanaynin taayadana shaybaarka waaxda shaybaarka inay iyadana tagto daraasad lagu soo sameeyo dhiigga laga soo qaado iyada laftirkeeda wixii haddana cudur ay halkaa ka soo baxay jawaab celinta la sameeyey marka waxaa kaloo jira u diyaargarowga iyadana ka mid ah qorshihii xafiiska u yeelay baahi ahaan xafiiska uu qorshaystay miisaaniyada 2014 iyo hawshan abaarta ay keentay iyo saameynta ay keensatay ma aha mid marka isku salaysan marka waxay noqotay gurmadka ballaaran ee caalamka laga soo gurmaday iyo deeqaha kala gidisan ee deegaanada kale ama federaalka ay soo gaarsiinayeen ama noocyada kala gidisanna u diyaargarowga daawooyin aan ka sugayna maadaama ay jiraan iyadana kuwa waxay noqonaysaa kuwa lagu sii xoojin doono waxaa kaloo jira lacag dhan 25 milyan
oo mashruucan LLRB-ga hadda uu u diyaariyay in daawooyinka xoolaha lagu soo iibiyo iyadana waxaan leenahay waxay ka qayb qaadan doontaa gurmadkan abaareed ee hadda socdo marka waxaan leenahay ififaalo fiican ayaa gurmadkii oo looga jawaabayo abaaraha ayaa ka muuqda taana waxaan isleenahay in sida ugu haboon ayaan leenahay waa lagu badbaadin karayaa dadka xoolaha ay ku tiirsanayeen ay saameysay iyo bulshada kala gidisan ayadana way muuqdaa waxa kale oo jira seed la soo iibinaya maadaama dabeecad aan garanayna dadkeena waayadii hore hawlahan calafka ma jirin in la beerto dadka dhaqan ahaan uma lahayn si talabtarkeeda abaabul looga sameeyo in seedka la soo iibiyo bulshada qaybaheeda kala gidisan loo qaybiyo si loo beerto marka calafka xoolaha oo diyaar garowga mustaqbalka ay noqoto iyadana wax fiican ka geysan doonta